Assalaamu calaykum. Insaanku waa makhluuq dhammaanaya, waxa laga abuuray ciid, ayada ayaana lagu celinayaa. Si walba aad u noolaato, waxaa ku sugaya waa geeri. Dhammaanteena waan dhadhaminaynaa siduu Alle Subxaanahu wa Tacaala noo sheegay. Kullu nafsin daa'iqatul mawt, thumma ilaynaa turjacuun. Naf waliba way dhadhaminaysaa geerida, kadibna xaggeena ayaa loo soo celinayaa. Alle weyne geerida iyo nolosha waxa uu u abuuray si uu noogu imtixaamo una arko midkeeni camal wanaagsan, siduu Alle Subxaanahu wa Tacaala sheegay. alladii khalaqa almawta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala. Alle Subxaanahu wa Tacaala waa midka abuuray geeri iyo nolol si uu idin imtixaamo midkiina ugu camal wanaagsan. Maadaama aan ku jirno aakhiru zamaan, waxaa badan doona geerida kediska ah, taasoo uu sheegay nebiga sallallahu calayhi wasallam. Uu dhahay ma dhici doonto saacadda qiyaamaha ilaa ay soo muuqato geerida kediska ah. Sidaa awgeed, insaanku miyuu dhimanayaa digniin la'aan ama ogeysiis la'aan? Maya, ma jiro axad naga mid ah ilaa Allah Subxaanahu wa Tacaala waxa uu u soo dirayaa digniino iyo aayado, kadibna waxaa kuwaana qaadanaya midkuu Alle weyne waafajiyey, waxaana iska indha tirayo midka ku shaabadaysmay adduunkan. Alle weyne sharaftiisa kor ahaatay, axad walba wuu u soo dirayaa digniinahaas, ha ahaado mid wanaagsan ama faajirba. Taasina waxa ay ka mid tahay naxariista Alle, si ay ugu waana qaataan addoommada caasiyey uguna baraarugsanaadaan dhammaan addoommada Alle. Fircawn faajirkii weynaa intaanan la halaagin waxaa loo soo diray aayado badan, kadibna wuu iska indha tiray oo wuu madax adeegay ilaa laga halaagay. qaaruun sida oo kale waxaa loo soo diray dad wax u sheega, ay ku dhaheen u wanaaji siduu Alle Subxaanahu wa Tacaala ku wanaajiyey oo kale. wa axsin kamaa axsana allaahu ilayk. Arrinta ugu horraysa oo Alle Subxaanahu wa Tacaala kuu soo diraya ayaa ah diraa. Diraagaas oo ka dhigan qof wax kuu sheega oo ku waaniya una kugu baraarujiya geerida. Sidaa oo kale mararka qaar Alle Subxaanahu wa Tacaala waxa uu kuu soo dirayaa diraa ku waaninaya, kuguna baraarujinaya ilaa aad ka baraarugdo. Dhimashada deriskaaga. Dhimashada deriskaaga kama dhigno inay iska dhinteen wakhtigooda la gaaray. Waa run, wakhtigooda waa la gaaray annagoo arrinkaas wada og, haddana waan iska indha tiraynaa. Dhimashada deriskaaga waa digniinta ugu horraysa ee Alle Subxaanahu wa Tacaala uu kuu soo dirayo. Haddii aad aragto qof dhintay, u malay inaad adiga ku xigsan doonto. Haddii aad waabarisato, ha sugin galabkii. Haddii aad galabaysatana, ha sugin waaga. Dhimashada deriskaaga kama dhigno inay deriska iska dhimanayaan keliya. Taasi waxa ay ka mid tahay digniin adiga laguu soo dirayo, oona lagu ogeysiinayo inay soo socoto maalinkaaga, oo adigana aad dhiman doontid qof uu kugu waana qaadan doono. Nebillaahi Daa'uud calayhi salaam ayaa waxa uu yidhi, Allow arrin ayaan wataa. Kadibna Alle weyne wuxuu dhahay, waa maxay Daa'uudow? Nebi Daa'uud calayhi salaam wuxuu yidhi, inaanan dhiman ilaa aad i ogeysiiso Allow. Alle Subxaanahu wa Tacaala wuxuu yidhi, waad leedahay taasi Daa'uudow. Kadibna waxaa u soo galay Nebi Daa'uud malakul mawtka. Nebi Daa'uud calayhi salaam wuxuu yidhi, Rabbigayga ayaa igula ballamay inuusan i oofsan ilaa uu calaamado ii soo diro, uuna i ogeysiiyo. Wuxuu dhahay, waa lagu ogeysiiyey, miyuusan dhiman deriskaaga, miyuusan soo rogmin dhabarkaaga, miyaysan ciroobin oo caddaanin tintaada. Arrimahaas ayaa ka dhigan digniino aad u waaweyn, balse badankeena aysan kuwaana qaadanin amaba aysan ogeyn. Alle ha naga dhigo kuwa soo jeestay oona u jeestay aakhiradooda. Cirada ayadoo ay geeridu wakhti lahayn, haddana waxaa naxariista Allah ka mid ah inuu ku siiyo cimri dheer, aad ku cirowdo, oo aadna iskaga sii baabi'in lahayd gafafkaagii hore, oo aadna ugu hogaansami lahayd awaamirta Alle Subxaanahu wa Tacaala. Tintaada oo cirowda waa calaamad kale oo ku tusaysa waana qaadasho ka hor geeridaada. Alle Subxaanahu wa Tacaala ha inaga dhigo kuwa kuwaana qaata wanaagga, una soo laabta xaggiisa, qaatimo wanaagsanna ku dhinta.